الحمد لله حمدا والشكر له شكرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا walaalayaal khudbadeenu waxa ay ku saabsan tahay waxa la yiraahdo macaasida ama dambiyada iyo godobta Ilaahay laga gala subhanahu wa ta'ala inay leedahay raad iyo waxyaabo xun oo laga dhaxlo ama si kale hadaynu dhugno u tilmaano cuqubo la arkayo caalamka ka muuqanaysa marka intaynaan horta waxba kordhin waxa muhiim ah inaynu wixii halaagaya ka badbaadno macsiya ama al-isyaan wa adoonka Ilaahay ku gacan sayda subhanahu wa ta'ala adoonku waxa ahayd mar hadduu adoonyo inuu Ilaahay aqbalo amarkiisana qaato inuu Ilaahay ku gacan saydo iraada Ilaahay oo kumaan aqbalin qowlna way noqon kartaa ficilna way noqon kartaa oo wixii Ilaahay uu faray hadaanu fulinaynin waa isagoo Ilaahay ku gacan saydo diiday qofka caasi baa la yiraahdaa wixii loo abuuray iyo adoonnimadiina muu garan عقوبooyinka leedahay waxa kamida xayaatul caasi laysat ka xayaati taa'i dadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala aqbalaya adoomaha waxa caabudaya iyo kuwa caasiyaya ifkan isku nolol maaha adduunyada iyo aakhiraba way kala duwan raaxada la baadi doonayo iyo nolosha macaan waxa laga helaa Ilaahay oo laga amar qaato nolol wanaagsan adduunyada iyo nolol wanaagsan aakhirada sidaas Ilaahay adoomaha abuuray in baraya ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقرآن كيسي رب سبحانه إلهي بأوحو الله يقفك كسي تيسدا حسكيغا وحيغا إلهي أضمها وكاني الذكر اسم من أسماء القرآن قرآن كما قاعدي يسوي قفك كسي تيسدا قرآنك أما بلشدا كسي تيسدا قرآنك هاقي وايو نلاشوا كعليل بولهي آخرنا وكسي الدريا ويسقوا إندرانا ويسسوا تاجي هلك أو تلمامي قفك عابدك أما أمد إلهي كأمر قادتنا إنه أرمه هردن أرد بيرينيه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فرقامين بان إذن سينا يابا إلهي والمشكلات كستوت ماد أرمه نورد موي فدوده نرشنا ونرل دقن ومير قبطة قرن كاد دقنو قبيلة دقنو قيس كاد دقنو قف مير قبا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب حسك إلهي يا إله والله أقول أدون الله نقدم بان لقو دقاه والله لقو حسلا وحا عقوبة تنبية نقلين فرها بضا كم إذا عقوبة ديسة أضامه أرساقة هلي لهين وايا وصوتي أرساقة هر الله قري سيده وايا مركو ربا إلهي وسي قرية هدو قفكاس عاصي النقدنا إلهي ديدنا أرساقة دي سوا انت ولغو يرينيا هدو عابد نقدو إلهي عابدنا أرساقة دي سوا انت ولا بقى قدروا يستبيا له نعاس لمدي سعرف كقابن بالدورانيا إلا عاسي وكتتك وقول نعسانه رسولك صلى الله عليه وسلم وحكول حديث صحيح إن العبد لا يحرم رزق بالذنب يصيبه أدونك وحا أرساقد وكوايا وهالي لها وكو علفكوا دنبي وقلي دادكو وحي كفكريان استراتيجية دي هرمر إيا وحي هلاني إني كدر صدان وإن إلهي أضيعاني كتلقاتان تيبان جري عقوبة معصية وحا كامدا أرنك أفراد ويا سوء السمعة بين الناس قفك ودتك أون لقود درون قلوبت أدومها هي إلهي سبحانه وتعالى إلهي إسكامور للسنة أدوم كوحو إسكود إنو أدومها إسكادسو أدومهم بو إلهي كدريا كوا وسلاي هاي آد وقود دال بلاكو تشعلادين كوي بابا نعيبا صحيح مسلم وحكو سجان من حديث أبي هريرة رسولك صلى الله عليه وسلم إلهي مركو أدونك جعلاده
malakul jibriil buu u sheegayaa wuxuu leeyahay addoonkaa waan jeclaaday rag iyo dumar mid kasta ha ahaado adiguna jeclow malagu intuu jeclaadaa buu u dhawaaqayaa malaa'igta samada joogto wuxuu leeyahay hebel ama heblaaye ilaahay wuu jeclaaday idinkuna jeclaada way jeclaanayaan qabuulkaa loo dhigayaa caalamka dadka ku nool qofkaasi qof wanaagsan oo magac leh oo ummadda miisaan kula mudan buu noqonayaa qofkuna rasiidka iyo kaydka uu dhigo waxa u qaalisan qiimo ugu qiimo badan inuu ilaahay agtiisa magac ku yeesho ummadda wanaagsan agtoodana magac ku yeesho marka la leeyahay caalamkana ammaanaya oo laga jeclaanayaa dee waa caalamka wanaagsan iyo dadka miyir qaba ee ilaahay ogol waayo dadka wanaagsanina qofka wanaagsan bay ammaanayaan dadka xumina waxay ammaanayaan qofka xun marka dadka oo dhan maaha waa dadka markhaatigoodu ku xisaabtanka uu leeyahay caadiliinta ah ee ilaahay addoomaha uwa subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid a mashaakilka ay leedahay macaasida dad badani ay macaansanayaan maanta ee aynu arkayna qowl iyo ficilba soconaysee la tilmaamaya in lagu ilbaxay oo lagu xaragoonayo caasinimada ilaahay la caasiyayo innaha tuziilu annicama min alcaasi dadka ilaahay caasiya subxaanahu wa tacaala nicmadii ay heli lahaayeen siday u waayeen aynu hore u soo sheegnay ta ay haystaanna wuu ka qaadaa waxay haystaan manfac iyo maal iyo mudnaan iyo madaxtinimo ilaahay wuu ka xayuubiyaa dulli buu ayuu ku dambaysiiyaa qur-aanku tusaalayaal badan buu taa inagu siiyey nimankii reer maka la odhan jiray way iska fiicnaayeenoo way iska ladnaayeen ilaahay wuxuu u soo diray rasuul sala allahu calayhi wasalam iyaga ka mid ah nebiyullaahi moxamed waa kuwii ku gacan saydhee ka gaaloobay ilaahay wuxuu ku salliday abaaro iyo cidhiidhi calaf xumo badan baa ku timid waa kuwii cabashada nebiga ula imanayay sala allahu calayhi wasalam lahaa ilaahay noo bari alla wuxuu uhi daraba allahu mathalan qarya kaanat aaminatan mudma'ina yaأtiiha risquha raqada min kuli makan fakafarat biancumi illaah faadaaqaha allahu libaasa aljuuci waalkhawf tusaalaa ilaahay u idiin siinayaa magaalo iska ladnaydoo deganayd arsaaqaduna dhan walba uga imanaysa ilaahay nicmooyinkiisi iyo diintiisii bay ka gaaloobeen markaasuu ilaahay cabsi iyo gaajo isugu daray tusaale kale qur-aanku wuxuu ku bixiyey qoladii reer yamaneede reer sabaa dad ladanoo xijin waaye barwaaqadiioo kadibna ilaahay wixii ay barwaaqada haysteen balaayo ugu bedelay iyo abaaro marka in badan waynu cabanaynaa oo cidhiidhi baa jiro oo adiga arkayo cudur iyo cadow muslimku uu ka cabanaya iyo abaarayntuba way istabahayaan laakiin waxaa muhiima dadku ilaahay subxaanahu wa tacaala inay u soo noqdaan sidaynu xagga dambe ku xusi doonno xalka qofka caasiga ama ummaddu marka ay ilaahay caasiyaan macsiyo iyo dembi waynu naqaanaa noocyaday kale yihiin waxa ay ka tagtaa tatruku dulmatan fii qalbi saaxibiha bimathaabati almaradi fi lbadan dembigu waxa uu kaga tagaa qalbiga raad tusaalahan waxayna siiyey qur-aanka waxaa sii sharxay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaahay baa wuxuu uhi kalaa baraana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun waxay shaqaysteen dadku ayaa qalbigoodii madoobeeyo daboolay nebigu markuu fasiraya sala allahu calayhi wasalam xadiidkaa saxiixa tirmidi ku sugan min xadiidi abi hurayra wuxuu uhi qofku markuu dembaabo nakatat fii qalbihi nuktatun sawdaa qalbiga bar madow baa fuusha hadduu kordhiyo qalbigu wuu sii madoobaadaa ilaa uu masaxmo markuu toobad keenana qalbigaasi wuu safaysmaa wuu iftiimaa wuu caddaadaa marka muuqaalka nasku ina siinayaa waxa weeye qur-aan iyo xadiidba sida wadnuhu cudurrada kale ee muuqanaya dhakhtarkuu daweeyo ugu bukoodaa buu macsiyadana ugu bukoodaa ilaahay baa wuxuu uhi kadalika yadbacu allahu calaa kulli qalbi mutakabbirin jabbaar sidaa aragteena fircoon iyo qoladiisii dhan walba looga xidhxidhay qof kasta oo kibray oo isweyneeye qalbigiisa ilaahay wuu daboolayaa walaa yasiidu aldaalimiina ilaa khasaara qur-aanku hadduu dawo yahay dadka diinlaawayaasheen ilaahay adeecaynin ma daweeyo macsiyada inaad ilaahay caasido haddaad doonto iskaba cibaadayso inaad ilaahay caasido inkaarahay leedahay waxaa ka mida tamnacu ijaabata adducaa wa tugliqu abwaaba asamaa ducadaada lama aqbalayo kol haddaad caasita albaabadii samada ee qowlkaaga iyo ducadaadu ay gaari lahaayeenna waa laga xidhayaa
إلهي بأوحل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون markay adoomahaygu ikaa weydiiyaan waxaad u sheegtaa inaan u dhowaho ducadooda aan aqbalayo laakiin maxay falyastajiibuu lii si aan ducadooda u aqbala ha i ajiibeen oo ha i aqbaleen hana i rumeeyeen intay i rumeeyaan ha iga amar qaateen baa ilaahay wili idan talabu listijaaba likay yujiiba adducaa ilaahay wuxuu amray addoomuhu si loo aqbalo ducadooda inay ilaahay amarkiisa qaataan ilaahay baa tusaalaha u wanaagsan leh laakiin bal waxaad ka soo qaadaa maalan qof bani aadam ah ama madaxa ama saaxiiba ama waalida ayaa ku yidhi waxaasaad helaysaaye waxaa samee si cad baa waxaad u tidhi ma yeelaya amarkaaga inaan qaato waxa waan kugu diidaye adigu kaygaysii qof waliba wuxuu odhanayaa kelimo miyir qaba hadduu caadi yahay bal wuxuu doonayo si uu helo waxa laga doonaya muu fuliya wuu karaaye ilaahayna maxaad u malaysay subxaana wa tacaala addoomaha abuuray ee khaaliqooda aha marka qofka caasiga ah markuu ducaysanayo wuxuu ka dhigan yahay ilaahow anigu waan ku diidaa adigu aqbal saasuu ka dhigan yahay waa kii rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiix ahaa qofka xaaraanta cunaya ee cabaya ee xidhanaya ee dhaqanaya iyo haddana yaa allah yaa rab rabbiyow buu leeyo uu ducaysanayaa wuxuu ihi fa annaa yustajaabu lidalik kaa ducadiisa sidaa loo aqbalaya marka duco badan oo maanta aynu arkayno iyo roobdoon iyo dikri iyo qunuud la aqbali laayahay asbaabteeday ka mid tahay taas macsiyadaa waxaa ka mida raadkeeda alwaxshatu fii quluubi alcusaa qofka caasiga ah ee ilaahay diida waa qof didsan wuu didsan yahay ma degana waa taa aynu arkayna dadka aan diinta lahayn isdilayaan ee cidhiidhiga ku sugan yihiin ee qosolka iyo farxaddu ay ka maqan yihiin ee loo raadinaya sidii looga qoslin lahaa maaweelooyin kala duwan baa loo sameeyaa oo idaacadaha iyo tiifiyadu ay ku maaweeliyaan dadka bal inay uun qoslaan dalxiiska waxay ugu ordayaan qosol iyo farxad raadinteed cibaadadii laga heli lahaana way diideen ilaahayna way caasiyeen subxaana wa tacaala markaa waxshadaa iyo cidlanimadaasi waxay ka bilaabmaysaa baynahu wa bayna allah uma baynahu wa bayna alcibaad marka ilaahay uu weheshan waayo subxaana wa tacaala qof didsan buu noqonayaa kadib haddana addoomahana wuu ka sii didayaa keligii inuu noolaadaa buu xiisaynayaa uu marka dambe halaagsamo arrinta tobnaade ay leedahay dembiga aynu fudaysanayno noocyadiisa kala duwan waxaa ka mid a tansicu albarakata min alcumr macsiyada iyo dembigu cimrigeenna barakada ayay ka qaadaa dembigaasi uu ka qaadaa cimriguna sidiisaba xayaatu alawqaat hiya alatii yuqdaa bidaacaat cimriga sidiisaba inta barakada leh waa intaad ilaahay ku caasido intaad ilaahay ku adeecda baan leeyahay cafwan intaad ilaahay ku adeecayso ee aad ku caabudaysunbaa cimriga barakada leh inta addoonku cimrigiisa iyo wakhtigiisa ilaahay uu ku caasiyana cadaab iyo cidhiidhi bay ku noqon doontaa iyo waxuu ka cawdo uu ka murugoodo marka cimrigii waxaad ka soo qaadaa tusaalayaal badan qofka maalan salaadan tukanaya jamac ku tukanaya dee ka aan tukanaynin intuu dheeryahay ama ka keligii meel ku tukanaya iyadoo waajibkaa uu ka tegay jamaca intuu dheeryahay qofka laylatulqadrigii waafaqaya inteebuu cimrigiisu noqonaya isku wada dar cibaadooyinka cimrigiisa addoonku uu gudanayaa barakada ay leeyihin waxaasoo dhan oo dunuuba raada baan leeyahay ama cuqubooyina waynu aragnaa iyadoo la taaban karayo way nagu badan yihiin gaalkii la garayo marka horeba ilaahay uu ku gacan sayray subxaana wa tacaala laakiin waxaa nasiib daraa qof shahaadanaya oo islaama oo haddana aafaadkaas iyo macaasida iyo dembiyadaa ku dhex jira oo weliba wakhtigan dambe marka aad aragto adduunyadu say isugu furfurantay dhaqamada dadkii muslimiintaa ka soo yeedhaya ama baraha bulshada ama tiifiyadooda iyo dadku say u fikirayaan iyo waxay samaynayaan iyo waxay ku faanayaan iyo waxay horumar iyo xadaarad u arkeen maalinba maalinta ka dambaysa waxaad la yaabtaabaad arkaysaa oo madaxu kugu xanuuno marka xalku muxuu yahay ilaa waxani waa cudurkiina daawo u baahan yahay daawadiisa ilaahay baa inoo fududeeyey subxaana wa tacaala inagumana cuslaynin sidii ummadii hore ay ugu cuslaan jirta ilaahay wuxuu ina faray attawba
dadku marka ay dambaabaan waxa waajib ku ah tawbatu ila Allah subhanahu ilaahay baa wuxuu qul yaa cibaadiy alladheena asrafuu ala anfusihim la taqnaduu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jamii'a fariintan gaarsiin nabi maxamed adoomahayga naftooda ku xadgudbee dambaabay caasiinta waxaad ku tilaada la taqnaduu min rahmatillah ilaahay naxariistiisa ha ka quusanina waxa la sameeyay gaalnimo u weyn munaafiqnimo hadduu adoonku ka toobad keeno ilaahay horay buu ka dhaafaya dembiga oo dhan ilaahay wuu dhaafaa dembi aanu ilaahay dhaafin ma jiro marka waxa faral ku ah qofka ama ummadda ilaahay caasida inay degdeg u toobad keenaan toobadana ilaahay shuruud buu yeelo toobad wanaagsan waa inay too caafimaad qabtoon ciyaar ahayn yaa ayuha alladheena aamanuu tuubuu ila allahi tawbatan nasuuxa toobad wanaagsan oo caafimaad qabta oo adaabteedana ilaahay u soo noqda ayaa rabbi u leeyahay subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam isaguna waxaa ku yihi xadiidan asu warinayo saxiixa kullu bnu aadama khataa wa khayru lkhataa'iina tawaabuun ina bani aadam wax macsuumihi ma jiro ambiyada marka laga tago qofku uu dambaabaya qofka dadka dambaabaya waxa u fiican kuwa ilaahay u soo noqonaya subxaanahu wa tacaala التائب من الذنب كمن لا ذنب له حديث كلام حسن أبوها قفك إلهي وصار نقنيا وحكر جاي ميدان ذنب بلهين رسول كانت تصالين أبوها صلى الله عليه وسلم وحولها ضديه أنو مالنتي إلهي بن ذنب داف ويديستا بقول شاره إلهي ذنب داف ويديستا ورسول كلا قد في ذنب يدورن كواحد كسورورين هنا قفك وإنه هبا عبادته لكن هدنا وإنه قاعد دع بدن إنه لي قفك هذه شير جفف بدن له وين لقوا بشارية إنه فرصة هايست ما دام في قيد الحياة والنولية فرصة داس إنه كفى ليس النابا واجب حلقنا وعينك هدو عذر يمين الداودي سواته إلهي نوافتشي حقنا الله ينوسخره اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة